musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay cadeeyeen mowqifkooda ka qaybgalka doorashada dalka. annagoo ah musharaxiinta xilka madaxweynaha dalka ee magacyadooda ay hoos ku xusan yihiin, waxaan garowsanay in dalku ku jiro marxalad kala guur siyaasadeed oo muddada dastuuriga ee hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta ay sii dhammaanayso sida uu dhigayo qodobka 6aad ee dastuurka, lagana cabsi qabo in dalka uu galo faraaruq dastuuri ah oo sababi karo burbur guud oo ku dhaca nidaamka dowladnimo haddii si degdeg ah loo xaqiijin madax banaanida gudiyada iyo dhammaan howlwadeennada ka shaqeynaya hirgelinta doorashada hufan oo la isla ogol yahay kuna dhacda muddada kooban ee haatan harsan. haddaba si loo suurageliyo in xilliga kala guurka baarlamaanka 10aad looga gudbo baarlamaanka 11aad una ku hirgasho si sharciyeysan wadar ogol ah, nabad iyo xasilooni siyaasadeed, waa in la dhowraa mabaadi'da iyo xuduudaha muhiimka ah ee hanaanka doorashada 2021 ee heshiiska siyaasadeedkii nidaamka doorashada dadban 2021 oo ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uuna meel mariyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uusan tafaraaruq awoodeed ugu imaan jiritaanka hay-adaha dowladda sida ku cad farqada 1aad qodobka 6aad ee dastuurka. sidoo kale iyadoo laga duulayo dadaaladii lagu bixiyay wada tashiyadii lagu gaaray heshiisyadii siyaasadeed ee hanaanka doorashada dadban oo ku salaysneed in heshiis loo dhan yahay lagu wajaho talada doorashada, ayaan si xoogan uga dhiidhinay dhismaha gudiyada doorashooyinka kadib markii aan xaqiiqsanay in xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha gudiyada doorashooyinka u soo xuleen shakhsiyaad ka tirsan anisa madaxtooyada iyo shakhsiyaad kale oo aad loogu yaqaan taageerada madaxweynaha iyo kooxdiisa. arrintaas oo si cad uga hor imaanaysa madax banaanida hanaanka doorashada iyo doorasho hufan oo dalka ka qabsoonto 2021. sida aawadeed waxaan halkan ku cadeynaynaa in soo xulista iyo magacaabista xubnaha gudiyada aysan waafaqsaneen heshiisyadii siyaasadeed ee horey loo gaaray, mabaadi'dii dawliga ahaa, dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shuruucda hanaanka doorasho oo loo qaabeeyay bob iyo ku shubasho doorasho, taas oo si cad uga hor imaanaysa qodobada 11aad iyo 12aad ee dastuurka iyo mabaadi'da guud ee matalaadda shacabka. ugu dambeyn waxaa si mas'uuliyad ku jirta ugu baaqaynaa in si degdeg ah loo saxo xadgudubyada lagu sameeyay heshiiskii iyo hanaankii wada ogolka ahaa ee doorashada 2021 oo ay ka mid yihiin habka loo soo xulayo dhammaan gudiyada doorashada ee labada heer dowladeed si loo xaqiijiyo doorasho ku dhacdo hanaankii lagu heshiiyey iyo waqtigii loo asteeyay. magacyada musharaxiintii ka hadlay arrintan isla markaana soo saaray qodobadan ayaa waxaa kow ka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, Xasan Cali Khayre, Shariif Xasan Sheekh Aadan, Daahir Maxamuud Geelle, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, Cabdiqaadir Cali Cusable, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, Xuseen Cabdi Xalane, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Maxamed Ibraahim Siiriin.